haddiiba Axmed Maxamed Islaan uu madasha soo fadhiisto isagoo oo kursiga Jubbaland matalaya waa la sharciyay oo sharciyay ilaa hadda ma aqoonsan beeleen Soomaa waxay aqoonsigu dhacayaa maalintu miiska soo fadhiisto aqoonsiga federaalku ay Axmed aqoonsanayaan miiska maalintu soo fadhiisto yuu dhacayaa uu fulay haddii uu taas fulana kabkii miisaaniyadna waa loo furay أنا قبضتين تين ولا يقع. وات. لبض عصب مركب ويحفلي عن شروط لا مفلي عن ضمن. مركب ولا قصب يعنيك. إيسا كرتيتيس كوما ينايمان. حسن. كرتي الزوزارين كويمان، كرتي مدحوين كويمان، كرتي الزوزار كويمان كويمان، كرتي وزير بين كويمان. سومالي دو. ولو أنا إيه صورنا. شخصيا. ودلوا هالشين كرو. الله يذكر راعي كرو. إيه ما صورنا ما أركو. Soomaaliyana meesha ay maanta taagan tahay waqti xaadirkan aan joogno meesha ay taagan tahay waxay aad iyo aad midnimo uga dhaweyd maalinta xasan iimaanay meesha taagnay wax badan oo maalinta fayooba maanta ma fayoob wax badan oo maalinta isu dhawaay maanta isu ma dhaw ruuxaas ma kala diray xasan baa sii kala fogay aad u kala fogay kala fogeynta la kala fogeeyay nin walba meeshu taagan yahayna shuruud adag baa ku xiran ma ka soo dhaqaaqo hal markaan waayo waxaan siri wadankan shuu wuxuu ku fiicnaan lahaa confederation cisaabidin wala oo madaxaaga meeshii aad qabanayso oo ku furantahay wax yar oo baasaboorka iyo lacagta iyo waxyaabo yar baa inaga dhaxay ku soo dhawow royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sarreyso ragna soo hanaashay waa royal shirkadda dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda Backlands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن دعوة كسر هذا برنامج كان حجورا برنامج قيبت أنت وسعودها هدوء ما هو ضلوا أقول هذا وحنا كفرنا قاين دونا ما كوي جدونا باش عالمك أيام كنت دايما مدحونها الصومالية عسومادي وقدري مدح الدولة قبل الجدة لو ما لنكهر أيام هيد مركي مدحونها الصومالية حسن شيخ محمود وضدك الصوماليين لو ذا جاي قرال وكل شيء جاي إن حبناها دولة قبل الجدة والسجوية ري شر وضتشي kaasi oo ka dhashay gogoshii uu ku dhawaaqay habeenkii ciidii kaasi oo qabsoomi doona sida uu sheegay madaxweynuhu qoraalkiisa ama uu ku sheegay 1 ilaa 2 bisha May ee sanadkan 2025 hadaba beesha caalamka ayaa arintaasi ku diiday madaxweynaha Soomaaliya waxaan eegi doonaa sidoo kale beesha caalamku talaabooyin ay qaban qaabinayso oo isla shirkaasi ku saabsan iyo sababta loogu diiday ayaan eegi doonaa saaxiibka Abdulxanaan Afakaar ee dhinaca fadhiya isaga barnaamijkan oo falanqayn doona inta uu socdo soo dhawaada saaxiibayaal magacayguna waa Barreer Kacas Cabdulxanaan soo dhawo aan dhawahay waa tay hore baan wax hadalay baaqi hore madaxweynaha iyo gooshii uu fidiyay sidoo kale barnaamij hore waxaan ku sheegnay casuumaadii uu ay villa Soomaaliya dirtay in dawlad goboleedyada qaarna la gaarsiiyay qaarna laga reebay dabcan beesha caalamka oo markii hore madaxweyne xasan ku cadeysay baa hadda arintii ka soo horjeestay soo dhaw maxay beesha caalamka qoonsatay bismillaahir rahmaanir rahiim horta beesha caalamku waa tagooshan fidisay ma ahayn xasan ninka fidiyay ay magmayska dhaxmareysay isaga dhaxmareysay oo waayo waa lagu qasbay isagu goolna muu u soconin midnimana ma una raadinaynin dameer kala isaga raraa xogaa markii la soo gaabatayna dameerkaas yaa qof codkiiba yaa ha dameer kala iska waalaba isaga raraa sababta ruuxu markuu la qumanihiisu qoorta u suran yahay waxa weeye arrin cajiib hawsha isagoo iska wata ee beesha caalamku u soo jeedisay hawshaas inay soconaynin sanadkii iyagu talada la wareegi jireen la gaaray bataatan bana sanadka doorasheedka u dambeeya Soomaalidu in la kala fujiyo mooyaane xilku macaan yahan sari way ku dhagtaa xilliga marka xaraarada kursigu qofka hayso waa in gacanta laga qabsado oo ka siidaa meeshu qabsada laga rojiyo oo qadda lagu hayo sanadkii baa la galay
beesha caalamku soo jeedinteedan ay soo jeedisay xasan uu qaatay wuuna fidiyey waqtigii ciidda isagoo uga faa'iidaysanaya fidintii uu fidiyey haddana gacantiibuu dib kala qabsadayoo ku xumayn xinfoodleynimo wax ahaa meesha ku jira maamuladii qaar baa loo diray qaarna waa laga reebay Jubbaland ka mid ah siyaasiyiinta intii la isyar watayna waa loo diray qaarna waa laga reebay hawshii noocaas ahayd caalamkii wuu ogaaday madaxweyne axmed maxamed islaamna wuxuu joogaa magaalada Nairobi arrimo fara badan oo arrimahaas ay ka mid tahayna beesha caalamka isu soo jiidaysay waa lagala tashado waa lagala xaalay isaga dhankiisana wuu meeshuu taagan yahay wuu sheegay iyo mowqifkiisa maantadana u dambeysay ingiriiska la kulmay maraykankuna sidoo kale khadka taleefanka ay ku wada hadleen hawlahan socda unbayna ka wada hadleen Soomaalidu walow ayna aniga ee sawirnay shakhsiyan wada lagu heshiin karo oo la isku raaci karo ma sawirno ma arko Soomaaliyana meesha ay maanta taagan tahay waqti xaadirkan aan joogno meesha ay taagan tahay waxay aad iyo aad midnimo uga dhaweyd maalinta xasan imaanay meesha taagnay wax badan oo maalinta fayoobaa maanta ma fayoob wax badan oo maalinta isu dhawaay maanta isuma dhow ruuxaas ma kala diray xasan baa sii kala fogeeyay aad u kala fogeeyay kala fogeynta la kala fogeeyay nin walba meeshuu taagan yahayna shuruud adag baa ku xidhan ma ka soo dhaqaaqo xal markaan waayo waxaana siri wadankan show wuxuu ku fiicnaan lahaa confederation Ciise Bidin wala oo madaxaaga meeshii aad qabanayso oo ku furantay wax yar oo baasaboorka iyo lacagta iyo waxyaabo yar baa inaga dhaxay waxaa marka maanta kulan yeeshay beesha caalamka xayndaabka xalina ku jirta kulankii ay beeshaas ku yeesheenna qorshayaal saddex isla meel dhigeen markuu xasan yimaadana inuu si toos ay wala kulmaan kalana xaajoodaan saddexda qodob maxay saddexda qodob waxa weeye sidii loo heli lahaa doorasho lagu midaysan yahay waa koow doorasho lagu midaysan yahay oo Jubbaland iyo Puntland iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay isku si ugu qanacsan yihiin iyo Xasan Sheekh Maxamuud doorashada loo dhan yahay processkeedu aad buu culus yahay ninkana waxaa u rarnaa gaari qof iyo cod la yiraahdo oo dhanka u jaystay meel aan wada lahayn ceel tagin qoliyahan kalena wax kale yay wateen iyo tii hore labada arrimood aad loo kala fog yahay in la isugu yimaado oo la isaga yimaado tanaasulkeedana la keeno yaa qasab ah wadadii doonaa loo maray qodob buu ahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa dastuur la isla ogol yahay dastuurkana iyadoo warkada la hayo iyo afar qodob farsameeyay oo maamul goboleedyada awoodooda dhimaysa oo meeqaamka madaxweynenimada dhimaysa oo hogaamiyaal lagu magacaabayo oo guddiga doorashada systemka ay hadda tahay ka bedelaysa oo 15 qof oo xarunta dhexe laga soo xulay sameynaysa oo waxay doonto sameyn kartaa oo ra'iisul wasaaruhu meesha ka baxayo oo madaxweyne ku xigeen shay la yiraahdo la sameynayo oo bartaas ka dhaadhiciyay taana cid isku ogolayd siiba hooyadii federaalka Puntland way ka maqnayd halka markay ku maqnayd doorashadaas ama dastuurkaas oo lagu midaysan yahayna waa in la helaa wixii uu walwalaaqay waagi dhaweydna waa in dib looga noqdaa ay noqonaysaa waayo dad baanaba joogin oo fartoodii suuq lagu dhooqay dastuurka way qodobka saddexaad waa siyaasad lagu midaysan yahay oo la isla ogol yahay siyaasadda la isla ogol yahay haddii ay jirto casuumaadda Jubbaland lagama tageen casuumaadda Jubbaland lagama tageen hadday jirto xasan sheekh baa tagi lahaa maxaan ku dhahay Puntland Garowe iyo Kismaayo hadday jiri karto xamza qaatumo ka tagay ya Kismaayo ka tagi lahaa ama Garowe ka tagi lahaa siyaasad la isku ogol yahay baan jirin marka ay ka cadtay meeshaas siyaasad la isku ogol yahay inay timaado saddexda qodob sidii loo sameyn lahaa iyo beesha caalamku kala hadli madaxweyne xasan markay xayndaabka xalana ugu yeedho wata beesha caalamka waxyaabaha dhibsadan waxa kamid ah la yiri casuumadan ay villa Soomaaliya dirtay Jubbaland laga rabay maamul goboleedyada kala loo diray marka ma laga yaabaa marka hadii mar casuumadii oo ay villa Soomaaliya dirtay beesha caalamka ay diiday marka horna iyada ay ku caadeysay madaxweyne xasan in hadda hadii la isku laabtay ay ka soo baxdo in Jubbaland loo yeero
jubbaland in loo yeero waa qasab shirku ma dhacayo beel caalamna ma taageerayso haddaan jubbaland loo yeedhin beesha caalamkuna intaa unbay ku cadaadinaysaa waayo shalayba way shireen intoodan kale puntland ba ka maqnayd shalayba way shireen cidda macnaha leh ee la dhiraandhirinaya inay meesha timaado waa jubbaland iyo puntland labadaa baana maqan ciidiiso ciid maahayn lafta gareen iyo qorqor iyo cali gudlaawa way wada qadeeyeen iyo xasan maxaa marka iyaga la iskaga qasbay isku qasab iyaga ma jiro cidda la isku buushgaranaya beesha caalamka ay xasan ku cadaadinayso waa labadaa nin isna toosna wuu diidi laayay toosna uga wareegi laayay raganimadeedii ma laha inuu yidhaahdo waan diiday umana yeedhayo ku safadhista raganimadeedii ma laha oo qolo lagu quuqinayaa jirta oo afgooyi ag fadhida soo dhawaatay kuwii madaxa doona kuwaas baa bareeshar wada ma samayn karo mana yeeli kara raganimadeeda intuu iskaga sameeyo war waan qaldamay wixii dhacay xalay dhali ka soo qaada ma dhihi karo waxbaa ku lamaan ninka waxbaa ahay ku lamaan labadaa inuu mid yidhaahdo unbayna noqon lahay raganimadu labadii midna ma samaynayo in la carirana waan aqaanaa in la dirirana waan aqaanaa in laakiin dhexda un la fadhiyo shuqul rag ma ah dhexdu fadhiya daniyow hoo axmed u diiday waa dhexdii moogta ama mu wada diida ama mu wada siiyo labadaas inuu mid yeela ahayd midna muriye laakiin beesha caalamka qasab ku yeesbiisa waayo waa nin la xukumo lacagtan la siinayo ee kabka ah yaa laga jaraya xasan waa nin Soomaali waxaa lagu pressure garanayaa kabka ururay ee Jubbaland uu hayo inuu fidiyo wata xasan waa nin oday oo waa ninkii madaxweyne wadanka ahaa waa nin Soomaali ah ranka kale tan waa madax Soomaaliyeed oo dawlad goboleedyada madax ka ah inta marka nin shisheeye ah iyo beel caalam isaga ay ku caadinayso inuu ragii kale waalihiisa Soomaali uu la fariisto oo wixii ismaandhaaf iyo madmadow ahaa halka lagu xaliyo maxaa diiday isagu in uu isagoo faragelintaas beesha caalamka diidaya inuu qaab Soomaalinimo oo madaxda Soomaalida kale ula kulmo haddii taasi ay dhacayso wixii dhacayo ma dhaceen raas Kamboni uu ku duuleen dani wana xiriirka u gooyeen dagaalkii caalamiska aad buu ku daawadeen gale wuxuuna weerareen gaduna weerareen baar dharuur inta aragtay nafa ku dileen waxaad aragtay oo dhib iyo kadeedu huna sameeyeen habeen walba intuu masaajidka galuuna may ka soo dhax qaateen isagii ra'iisul wasaarihiisa kaliya aan go'doon isgaliyeen haddii taasi dhacayso oo wanaaga uu garanayo muuna taa sameeyeen qaladaad aan fahmi waayay oo ruuxda kolkaad ruuxa wax ku diyaarayso aad garanayso kolkaad fahmi weydo ma la sixray baad dhihi moogta ruuxa ma la taagay baad dhihi waayo sabab uu waxani kaga suura gala ma garan karaysid in khibrad labo aha nin aan lacag u baahnayn buu ahaa nin dad badan dhalay dadkiisii wada shaqeeyo ahaa nin Soomaaliya in badan macallin ka soo abu ahaa nin xil soo qabto madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliyeed intii mar la doorto haddana mar labaad soo laba gala labana doortay intii mar uu is doorto haddana mar labaad is soo doortay oo suurta gasho yuu ahaa waxba qabiye ka ah oo qabiye ninkeed baa dhamaystiray buu lahaa oo ku beer la xusinay Soomaalida waxaan wuxuu uga suura galay marka maskaxdaada kuma soo dhacay inta noo dhibay dhacday maskaxdaada ma soo dhacay ee Itoobiya isku jirjirinta ee xaggan u boodista ee dad waxa soo dhan ma qiyaas kartid si kastaba ha ahaatee hadduu wanaaga samaynayo kolkii horuna dhib ku dhaceen hadduuba se dhacay inuu isqabtay ahayd hadduu isqaban waayena waa la qaban taas aan ku qasban yahay in la qabto iyo ku qasban yahay sababtoo ah Soomaalidu walow ayna aniga ee sawirnay shakhsiyan wada lagu heshiin karo oo la isku raaci karo ee ma sawirno ma arko Soomaaliyana meesha ay maanta taagan tahay waqti xaadirkan aan joogno meesha ay taagan tahay waxay aad iyo aad midnimo uga dhaweyd maalinta xasan iimaanay meesha taagnay wax badan oo maalinta afayooba maanta ma fayoob wax badan oo maalinta isu dhawaay maanta isu ma dhaw ruuxaas ma kala diray xasan baa sii kala fogeeyay aad u kala fogeeyay kala fogeynta la kala fogeeyay nin walba meeshu taagan yahayna shuruud adag baa ku xidhan ma ka soo dhaqaaqo xal markaan waayo waxaana siri wadankan show wuxuu ku fiicnaan lahaa confederation Isa bidin wala oo madaxaaga meeshii
aad qabanayso way kuu furan tahay wax yar oo baasaboorka iyo lacagta iyo waxyaabo yarar baa inaga dhaxay abubakar al-sadiiq islaamiga online wuxuu ugu bishaareynaya ardayda qurba joogta inay ka baran karaan quraanka kariimka hikaada siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam axaadiista sixida carabka af Soomaaliga iyo barbaarinta ubadka hab casri ah oo online ah goor kasta iyo goob kasta waxay faahfaahinaa lambarada shaashada taa xal aan ahayn Soomaali waxay oo ninka kismaayo imaanaya ee federaalihi uu hoos imaanaya ninka xukuma kismaayo awoodda confederation kuleh saasay noqonayso taasaan isleeyahay oo waxa kaliya lagu wada joogi karo waa inaan ka ahayn imaarado yar yar oo is ag yaala oo awood daran oo midna Kenya ku tiirsan tahay midna Ethiopia ku tiirsan tahay midna Djibouti ku tiirsan tahay ee u sii socdaan oo qabiil walba qabiil gumaysan kara ilaa ma jire qabiil walba calankiisa uu ka dhex taagto magaaladooda waxaana waxa gaarsiiyay siyaasiyiin akhasunaasiina meesha gaarsiisay dadka oo hunguri iyo dantooda gaarka dhowranay mar haddii ay taasi dhacday shacabkii Soomaaliyeed arta waa meeshii dadka lagu lugooyo Soomaa gobol ka fiican baa Hargeysa taale arta waa meesha Hargeysana fogeysay Soomaalina 4.5 wax leeyahay ku waxaysay ila qaacidadan waa qaacida Djibouti la keenay 4.5 way ee lugooyadii 106 odayna saxiix ka reebtay oo qabiil ah waxina qabiil u celisay leen kaxaan iyo dawlad baynu ahayn dibkan oo dhanna waxaas ka dhacay goboltii ka weyn in Hargeysa la dhigo Hargeysa lugaha la qabsado Hargeysa la raali geliyo Hargeysa waxaad ku maqnayd oo dhan kow ka soo bilow goboladan iyo maamul goboleedyada laga noqdo 18 gobol ee hore lagu noqdo wadan la isla ogol yahay uu noqdo wadadaas oo aan aad igu sawirnay si ay ku suura galayso waa xal baan islaahay wadada labaad ee ugu dhowna confederation maamul goboleed kasta awoodiisu si xoogaysato ciidankiisa lahaado ID cardkiisa lahaado balad ogow ID cardkiisa iyo ciidankiisa oo gaar u ahaado sida hadda Soomaaliland tahay oo kala ah shan maamul goboleed oo sida hadda Soomaaliland tahay oo kala ah iyo Soomaaliland oo lagu daray oo dabka uu kala qaata cashuurahana kala qaata walibana wax yar wadaaga buu hadda aan malayno xasan baan geeyay meeshaas xasan baan geeyay weedha sida waatay madaxweynaha Jubbaland beesha caalamka kala kulanta waxyaabaha hordhay waxa kamid ahaa in dawladda federaalka koow ay ku dhawaaqdo inay qaado mas'uuliyadda wixii ka dhacay raas Gambooni laba waxa kamid ahaa in xayiraadda dadka reer Jubbaland haystay dhibaatooyinka badan u geystay laga qaado in la qaado waxyaabo kale oo ayagana way jiraan oo ah dacwadii waxaweye madaxweynaha Jubbaland ugu soo oogay laakiin laba dacwad baa jiray la xasan mid lagu oogay iyada labadaas waa isoo bixin moogtay laakiin labada arrin baa ugu cuslaa baa leeyahay waxyaabaha shuruudaha uu madaxweynaha Jubbaland u beesha caalamka hor dhigay xasan marka ka garaabi doona ma aqbali doona in reer Jubbaland aan qabateenta diyaaradaha saaran laga qaado mas'uuliyadda wixii ka dhacay raas Gambooni ay way qaataan wax alla wuxuu xasan aqbali ma jirto laakiin wixii dantu dhaafiso way Axmed inuu hor fadhiista ma aqbalayo inuu madal ugu yeedho ma aqbalayo inuu cuno qabateen ka qaada ma aqbalayo tii raas Gambooni inuu qaatana ma aqbalayo laakiin dhammaantoodba wuxuu aqbalay isagoo ku qasban raas Gambooni wuxuu ku aqbali isagoo warkada leeyahay diyaarada u raray ninka diyaarada raray waa qalad qaadanaya hadda waan xukuminayna moogta midan kale madashana hadiiba Axmed Maxamed Islaan uu madasha soo fadhiisto isagoo oo kursiga Jubbaland matalaya wala sharciyeysan ilaa hadda ma aqoonsan beelay Sooma waxay aqoonsigu dhacayaa maalintu miiska soo fadhiisto aqoonsiga federaalku ay Axmed aqoonsanayaan miiska maalintu soo fadhiisto yuu dhacayaa uu fulay hadii uu taas fulana kabkii miisaaniyadna loo furay أنا قبضتين تين ولا يقع. وات. لبض عصب مركب ويحفلي عن شروط العمل فلي عن ضمن. مركب وعلى قصب يعني نك. إيسا كرتيتيس كوما ينايمان. حسن. كرتي الزوزارين كويمان، كرتي مدحوين كويمان، كرتي الزوزار كويمان كويمان، كرتي وزير بين كويمان. وزير كوا وده بدأ يسوي رجيب لنا يا أملي. يا ريما جوده. وزير ريما جوده و وحوش. أمني كسماها أمني كهاي. فرتك. wuu awoodaa waxyaabo fara badan ma sameyn karo
xasan soo ma aha madaxweynihii guud ra'iisul wasaare soo reer Jubbaland ma taliya ciidanka lagu soo reer Jubbaland ma rag fara badan oo saraakiil soo reer Jubbaland ma samayn karaan laakiin iyagu ku qasban bay samayn karaan oo cidna abaal iyo wixii ugu qabay xilliga laakiin abaalka loogu qabay xilliga waxay ahayd intaan miiska la isla taginay miiska Axmed markuu soo fariisto sharciyada iyo buuxda kadib marka loo baahan in xasiiqa qaado soo inuu tago miis ma loo baahan yahay inuu tago baa loo baahan yahay haduu tago wixii kale waa waxa kala dhuuf hada wasalaam halo kala tagay beesha caalamka xasan marka daba kadib si wada maxaa laga filan karaa waxaa laga filanayaa beesha caalamku akhdi bay taagan tahay meeshii aan laga soo noqonayn xasanna beesha caalamka ma baryaysee waa qasab fito baa jirta moogta way dhaqaalaha ku dhaqaaqayaan meesha uu ku socdo iyo ciidanka ilaalinayo iyo sirdoonka uu soo sheegaya iyo waxa dhan inay Soomaaliya hadda dawladda ka shaqeysa ahba qolada xalanaha hogaaminaysa ee gumaysigana nagu dul haysa qolada marka lama amar diidi karo waa lagu qasbay marka in la raaco aad ma santaa adiga waa hada wadayaal qodobkan intaas ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe nabadgeliyo